dugsiin talaabo arbaco oo laba iskuul aan dhiga jiray dadkuna cadcadaan lahayn dadkuna ma haddana waxaa la dhahay goodax dhawaaqay oo telefishin qaranka lagu dhawaaqay markii aan ka maqlay wasiirka Luqmaan kucad dukumeenti ay soo saartay hay'adda Transparency International sanadku markuu ahaa 2020 Soomaaliya ayaa ku jirtay booska koowaad marka imaata musuqa waxaana kamid ah meelaha musuqu aad ku duloodo deeqaha waxbarasho ee ka imaada wadamada dibadda muuqaalkan waxaan uga jawaabi doonaa 3 su'aalood oo kala ah wadamada ugu badan ee Soomaaliya ka hesha deeqaha waxbarasho sidee loo musuqmaasuq deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda gobolka Banaadir iyo sida xal looga gaari karo si ardayda gobolka Banaadir ay u helaan deeqaha waxbarasho si joogto ah badan ee Soomaaliya ka hesha deeqaha waxbarasho sanadkii tagay 2020 ayaa lagu sheegay 7 wadan ayaana u kala horeeyay sida deeqaha waxbarasho ee laga helay u kala badnaayeen wadanka kaalinta koowaad galay waa Turkiga oo ah wadanka ugu badan ee Soomaaliya deeqaha waxbarasho ka caawiyay sanadadii ugu dambeysay kaasoo si joogto ah u siinaya Soomaaliya deeqaha waxbarasho wadanka labaad ayaa soo galay Suudaan kaasoo Soomaaliya ka caawinaya deeqaha waxbarasho ilaa 90 kaasoo ay ka soo aflaxeen arday badan kuwaasoo wadanka ka haya jagooyin muhiim ah wadanka saddexaad ayaa Itoobiya kaasoo deeqaha waxbarasho ee ugu badan ay ka helaan maamulada Puntland iyo Somaliland wadanka afraad waa Masar kaasoo si lamid ah Suudaan Soomaaliya ka caawinaya deeqaha waxbarasho laakiin sanadadii ugu dambeysay ay ku imaadeen gaabis wadanka waa China kaasoo sida Soomaaliya uga furtay safaaradda burburka kadib saameyn badan ku lahaa deeqaha waxbarasho ee Soomaaliya la siiyo labada wadan ee ugu dambeeya waa Italy iyo Japan kuwaasoo ah wadamada ugu badan ee deeqaha waxbarasho laga helo markay imaato heerka labaad ee waxbarashada sare kuwaasoo ku lug lahaa sanadadii ugu dambeysay inay ardayda Soomaalida ka caawiyaan heerka labaad ee jaamacadda ama master degree waxa loo yaqaan isweydiinta mudan ayaa ah sidee loo musuqmaasuqaa deeqaha waxbarasho ee ka yimaada wadamada dibadda oo loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed cilmi baaris ay samaysay hay'adda MHRF ayaan ku ogaanay in arrintan ay ku lug leeyihiin xubno sarsare oo ka kooban xildhibaan wasiiro agaasimayaal ku dhadhow hadba xukuumadda wadanka markaas ka talinaysa kuwaasoo deeqaha waxbarasho si hoose ugu naasnuujiyo eheladooda halka qaar kalena ay si hoose uga gataan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha waxbarashada arrintan ayaana soo jirta sanado badan taasoo ka dhigan in xafiisyada garsoorka aysan wax baaris iyo dabagal ku sameyn deeqaha waxbarasho ee laga helo dibadda dhinaca kale waxaa arrintan wax dareen ah aan siin qaybaha kale ee qusayso sida bulshada rayidka midowga jaamacadaha iyo sidoo kale midowga iskuulada gobolka Banaadir oo haddii la heli lahaa kaalintoodii ay wax badan iska bedeleed musuqa lagu hayo deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed sidaan ogsoonahay musuqa deeqaha waxbarashada lagu sameeyo aad saameyn leeyahay ardayda ka imaata gobolka Banaadir oo kaliya halka ardayda gobolada kale ay saameyn badan ku lahayn musuqaano ka jira wadanka laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii sanadkii hore uu gobolku la wareegay arrinta ku saabsan arrimaha waxbarashada taasoo ka dhigan inuu sidoo kale la wareego deeqaha waxbarasho ay ka imaadaan wadamada dibadda ee quseeya gobolka Banaadir si loo xaqiijiyo in ardayda gobolka Banaadir ay helaan deeqaha waxbarashada ee ka imaada dibadda si lamid ah gobolada kale hay'adda MHRF ayaa ku talinaysa in la sameeyo qodobada soo socda barwana waa in agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir ay qaataan mas'uuliyadooda ku saabsan in la helo deeqaha waxbarashada ee gobolka iyadoo lagu saleynayo saamiga ardayda qalin jabisa wadanka laba waa in la abuuro guddi ka kooban bulshada rayidka culimada iyo waalidiinta ardayda qaar kuwaasoo dabagal ku sameeya arrinta deeqaha waxbarashada saddex waa in warbaahinta gaarka loo leeyahay ay sameeyaan dabagal joogto ah iyadoo ay wax ku weydiinayaan cidda ay qusayso arrinta ku saabsan waxbarasho ee la helay isla sanadka dalkani waa markaadii la wadaag muuqaalkan cidda ay qusayso sidoo kale la gaarsiiya asxaabtaada si loo xaqiijiyo in la helo musuqmaasuq la'aan ku imaata deeqaha waxbarasho ee wadanka sidoo kale waxaan ku hadli doonaa codkaadii codka dhalinyarada Soomaaliyeed si loo helo xuquuqiyaadka asaasiga ay leeyihiin dhalinyaradu